wanaagsan saaxiibada ku xiran janaalkeena Nuxur TV ku soo dhawaada maanta iyo muuqaal cusub. Muuqaalkeena maanta waxaan kaga hadlaynaa xariga magaalada Hargeysa lagu geystay Cabdiqaadir Cali Cismaan Bilaal Bulshaawi oo kamid ah dhalinyarada TikTok loogana yaqaano madaxweynaha TikTok. Darmaan caati Mooriyaan ayaan tarxaysin dhalinyaro walaaniyo Bilaal waxa dab socdeen meel Allahu akbar beentis waani lagu hagu socdo daba dhanku ma socdo xaytaahe hadeero wuxuu rabaa in dabada ku socdo xafaayad musbaarka qashinka dhiiqada dabadii galaan arwaa ku dubar qashinku magagaas intaasna ma dubarka ayaga ku maqay subxaanallaah Allah cali dabada ku socdo minay galay mooy Bilaal Bulshaawi oo TikTok caanka ah ayaa maalmahan ku xirnaa magaalada Hargeysa xilli uu soo dhameystay xabsi 7 maalin ayaa waxaa shal la horkeenay maxkamadda magaalada Hargeysa. Bilaal Bulshaawi ayaa ka cawday in booliska Somaliland ay jirdil ugu geysteen xabsiga gudihiisa gacmaha iyo lugahana katiinado ugu xireen. Booliska Somaliland ayaa codsaday in ninkan xarigiisa la dheereeyo si ay kiiskiisa u baaraan maxkamaddana dib ay ugu soo celiyaan. waxaa hoos u dhac laga dareemayaa muuqaalada ay sameyn jireen dhalinyarada TikTok isticmaasha taasi oo ay sabab u tahay in uu xiran yahay hogaamiyahoodii. Bilaal Bulshaawi ayaa waxaa magaalada Hargeysa loogu xiray koob shaah oo calanka Soomaaliya loogu soo sameeyay darteed. Bilaal Bulshaawi miyaa qalad kale mise maqaayadii shaah sameysay ayaa qalad kale? Macalinkii Soomaaliya kii Israa'iil isku bedelay mise Hargeysa Baghdad noqotay? Magaca Somaliland waa dhulkii Soomaaliyeed. Macalinkii buluuga ayaad ka suulin kartaan mise magaca ayaa iska bedelaysaan. gudaana saaxiibayaal warbixinta idinkaga diyaariyay Bilaal Bulshaawi intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa waad ku mahadsantihiin daawashadiina.